isagoo oo ku sii socda safarkiisa Australia waxay dhex uga qaadanayaan gaarigiisii ka oo ah hantida kaliya uu haystay misina aad u jeclaa. intaa kadib isaguna waxa uu go'aansanayaa har iyo habeenba sidii ku soo dhacsan lahaa gaarigiisa. The Rover waa khulaasada filimka maanta aan sharxi doono. magaciigu waa Satar. soo dhawow daawade. bilowga filimku waxa uu ku bilaabanayaa 10 sano kadib markii ay dunidu ku habsatay burbur dhaqaale. waxayna dunidu markaa gashay xaalad burbur ah iyadoo ay jirto marxalada aad u adag. Australia ayaa noqotay isha dhaqaale ee kaliya ay dunidu indhaha ku wada haydo, taasi oo sababtay in dad badan ay meelo dheer uga soo safraan. ninkan waxa lagu magacaabaa Eric. waxa uu soo qaadanayaa gaarigiisa. waxa uu ku sii jeedaa Australia. hanti waxa uu ku haystaa kaliya gaarigan, waana shay kaliya uu aad u jecel yahay. intaa kadib Eric markaan waxa uu imaanayaa goob si uu ugu nasto. waxyar kadib haddana waxa goobta soo gaaraya kooxo burcad ah oo cararayay. mid kamid ah kooxda oo lagu magacaabo Henry waxa soo gaaray dhaawac, balse waxa uu labadiisa saaxiib kale ka codsanayaa in walaalkiisa oo ay gadaal uga soo tageen ay u laabtaan gaarigan ay xawaaraha ka yareeyaan. laakiin odaygan oo saaran gaariga uu ka diidaya, isagoo u sheegay in walaalkiisa uuba xilligaa dhintay, taa beddelkeedana naftooda aysan gelinaynin wax khatar ah. Henry oo ka carooday hadalka wuu xanaaqayaa, kadibna waxa uu steerinka kula dhegayaa darawalkii, taasi oo sababtayna in gaarigoodu uu ku gadoomo meel u dhow goobtii uu ka nasanayay Eric. intaa kadib odaygii oo aanan waxba soo gaarin waxa uu ka soo degayaa gaariga, kadibna waxa uu si toos u soo aadayaa gaarigii Eric oo meesha yaalay. waxa uu jebinayaa muyaaradda, kadibna waxa uu galayaa gudaha. markii uu kiciyo gaariga waxa uu wacayaa labadiisa saaxiib si ay u soo fuulaan, laakiin Eric oo ku soo jeesanaya qayladooda waxa uu ku warhelayaa gaarigiisii oo lagu tagay. isla markiiba uu ka soo daba cararayaa, balse waa goor ay babaxayn. waxa uu toosinayaa gaarigii ay kooxda ka tageen. dadaal dheer kadibna waxa uu soo qaadanayaa gaarigooda, kadibna waxa uu soo fuulayaa wadada si uu u soo dabagalo iyaga. cabaar kadib kooxdii waxay ka warhelayaan gaari soo cirsanaya gadaashood. Eric waxa uu la soo simayaa gaarigiisa, wuxuuna u sheegayaa in gaarigii ay soo qaateen uu isagu leeyahay, balse kooxdii mid ka mid a waxa uu la soo baxayaa biskoolad. isla markiiba Eric waxa uu laabanayaa gadaal, balse weli kama harayo. kooxdii haddana waxay mar kale dareemayaan inuu daba socdo isaga, waxayna isku dayayaan inay cabsi geliyaan. waxay ugu handadayaan biskooladooda, laakiin mar walba Eric waxa uu iska dhigaa mid ka haray iyaga, balse wuu soo daba kacayaa. intaa kadib kooxdii waxay dareemayaan cabsi maadaama ninkan uusan ka daba haraynin. cabaar markii ay sii socdeen waxay yareynayaan xawaarihii gaariga, halka Ericna uu istaagayo goob wax yar u jirta. kooxdii waxay ka soo degayaan gaariga. sidoo kale Eric isaguna waxa uu imaanayaa dhulka. wuxuu soo aadayaa dhinacooda isagoo u sheegaya kaliya inuu doonayo gaarigiisa, balse markii uu soo dhawaado wuu ku soo boodayaa, wuxuuna bilaabayaa inuu la dagaalamo. laakiin iyaga oo ku goobanaya way garaacayaan ilaa uu mir daboolmo. dhinaca kale muuqaalka markaan waxaan ku aragnaa Ray oo indhaha kala qaadaya, waana walaalka Henry kaasi oo ay kooxdiisu ka soo tageen. iyaga oo mooday inuu dhintay waxa uu ka soo agkacayaa goob ay yaalaan meydad askar ah oo ay laayeen walaalkiisa Henry iyo kooxdii la socotay. intaa kadibna Ray oo u muuqda mid dhaawac zaa'id soo gaaray waxa uu arkayaa gaariga askarta oo yaala meel u dhow isaga. waxa uu soo qaadanayaa gaariga, kadibna waxa uu soo fuulayaa wadada weyn. laakiin cabaar markii uu sii socday waxa qabanaya xanuun ilaa uu ka soo degay gaariga oo uu wadi waayey maadaama uu aad u dhig baxay. wuxuu soo fadhiisanayaa geed hoostiisa, halka dhinaca kale Eric isaguna markaan uu ka soo toosayo isagoo dhex jiifa goob geeda badan wuu soo kacayaa, kadibna waxa uu arkayaa gaarigii oo yaala meel u dhow balse fura la'aan ah. waxa uu furaha ka raadinayaa hareeraha gaariga. intaa kadibna waxa uu soo qaadanayaa gaarigii. cabaar kadib waxa uu imaanayaa goob ay degan yihiin dad. waxa uu ku soo leexanayaa garaash. markii uu soo galo gudaha garaashka waxaa ka hor imaanaya nin. waxa uu weydiinayaa inuu arkay gaari ay saarnaayeen 3 ruux, laakiin ninku waxa uu sheegayaa inuusan arkin waxba. Eric waxa uu u soo baxayaa banaanka, balse waxa uu arkayaa wiil dhalinyaro ah oo galaya goob kale. isla markiiba waxa uu soo galayaa isla goobtii, kadibna waxa uu weydiinayaa inuu arkay gaari ay saarnaayeen 3 qof, laakiin wiilku waxa uu sheegayaa inuusan waxba arkin, balse uu weydiiyo naag da'a oo fadhiday isla goobta. Eric waxa uu imaanayaa naagtii, laakiin uma jawaabayso. Eric oo yaaban waxa uu soo baxayaa banaanka, balse waxa uu arkayaa 3 nin oo gaggaaban, balse waxa soo kaxeynaya mid ka mid ah si uu uga iibiyo hub. ninkii waxa uu keenayaa goobtii hubka. Eric waxa uu qaadanayaa mid ka mid ah hubkii, balse ninku waxa uu sheegayaa in lacagteedu ay tahay $300, taasi oo ka dhigan in Eric uusan haysan lacagta. Eric waxa uu raadinayaa qorshe, balse ugu dambeyn waxa uu soo baxday kaliya inuu ku dhufto xabad maadaama uusan u haynin wax lacag ah. intaa kadibna waxa uu soo aadayaa gurigii ay joogtay naagtii da'da ahayd. waxa uu ku qabanayaa biskoolad, kadibna waxa uu ugu handadayaa inuu dili doono haddii kale ay siiso jawaab ku filan, laakiin waxa ay u sheegaysaa inay iloobi karin gaari maadaama ay raaceen muddo aad u badan, aadna ay ugu xiistay. wuu ka soo tagayaa maadaama uu ku jahwareeray jawaabteeda. waxa uu soo baxayaa banaanka, balse waxa uu sikadiisa u arkayaa Ray oo ku qaylinaya aniga aqaano meeshay joogaan. isla markiiba Eric waxa uu ku qaylinayaa Ray isaga oo ka codsanaya inuu u sheego, laakiin nasiib xumo Ray waxa uu ku dhacayaa dhulka maadaama uu hayo xanuun aad u badan. isla markiiba Eric waxa uu imaanayaa goobtii uu ku soo galay. waxa uu ninkii meesha jooga weydiinayaa dhakhtarada goobtan, laakiin ninku waxa uu sheegayaa in halkan aysan lahayn wax dhakhtar ah, balse uu ka helayo tuulada ku dhagan. isla markiiba waxa uu soo aadayaa tuuladii. waxa uu la kulmayaa dhakhtaradii isagoo ka codsanaya inay caawiso oo ay daaweyso Ray. way ka aqbalaysaa, waxayna Ray ka soo saaraysaa xabadii, laakiin isla goobtii Eric waxa uu ku arkayaa eeyo fagfag ah baahi darteed.
darteed. subaxii Ray xaaladiisu way soo roonaanaysaa. waxa uu kor imaanayaa Eric oo hurda. uu ka tagayaa cabaar kadibna Eric markii uu kasoo tooso hurdada waxa uu biskoolad ku qabanayaa Ray isagoo weydiinaya halka ay joogaan. laakiin Ray waxa uu ku jawaabayaa inay ka xigaan dhinaca koonfur. intuusan ba hadalka dhammaynin Eric waxa uu ka warhelayaa rag soo galaya tuulada. waxa uu isla markiiba dareemayaa inay yihiin saaxiibada ninkii uu kasoo gadanayo hubka isagana ay raadinayaan. waxa uu dhakhtaradii ka qaadanayaa qorigeeda kadibna waxa uu tooganayaa nimankii. intaa kadib labadoodu waxa ay soo fuulayaan wadada iyaga oo raba inay sii wataan safarkooda. intii ay wadada sii socdeen waxa ka muuqanaya inay si aad isku fahmeen. markii la gaaray habeenkii waxa ay ku leexanayaan goob si ay u seexdaan laakiin labadoodu waxa dhaxmaraya xoogaa khilaaf ah maadaama Ray uu si kaftana ugu dhahay ma aqaano halka ay jiraan kooxdii. halka Ericno ay ka tahay arrintu serious uu ka caroonaya hadalka. waxa uu qoorta ka qabanayaa Ray kadibna waxa uu sheegaya in ujeedadiisu u weyn ay tahay inuu helo gaarigiisa. balse Ray isaguna waxa uu Eric u sheegay in walaalkiisu isaga xitaa ilaaway dibna aan u soo xasuusan. sidoo kale waxa uu xitaa u sheegaya in walaalkiisu uusan agtiisa ka lahayn wax ahmiyad ah. Eric oo hadalka aad ula yaaban waxay ku balamayaan in subaxii ay sii wadan doonaan socodkooda. cabaar kadib Ray waxa uu dareemayaa dhaqdhaqaaq iyo shanqar dhinacooda ah kadibna waxa uu ku gambanayaa laba sariir dhexdooda isaga oo diyaarsanaya biskooladiisa. shanqartii markii ay u soo dhawaatay waxa uu xabad ku dhufanayaa albaabka. intaa kadib markii uu soo baxo banaanka mise waxa uu xabad ku dhuftay caruur yaryar. dhinaca kale Eric markii uu maqlay dhawaaqa xabadaha waxa uu soo aadayaa Ray dhinaciisa waxayna isla markiiba go'aansanayaan inay goobtaba isaga tagaan. intaa kadibna waxay degayaan goob kale oo banaan ah. Ray waxa uu Eric uga sii sheekeynayaa noloshiisa sidoo kale waxa uu u sheegayaa in uu mahad celinayo maadaama uu naftiisa badbaadiyay. intaa kadib Eric suuxi waxa uu ka warhelayaaba isagoo ay dul taagan yihiin ciidamo waxayna ka xirayaan gacmaha. waxyar kadibna waxa ay u keenayaan taliyahooda halka Ray inuu isagu kor kala socday xaaladii Eric. markii ay askartu keenaan xaruntooda taliyihii waxa uu bilaabayaa inuu Eric weydiiyo su'aalo si uu u ogaado waxa uu yahay halka Ericna xilligaa su'aalaha uu uga jawaabayo si degan taasi uu aad ula cajabay taliyaha. laakiin waxa ka sii yaabisay markii uu sheegay in uu dilo maadaama uusan doonayn inuu galo xabsi. laakiin taliyuhu uu ka diidayaa wuxuuna u sheegayaa in dadkiisa uu raadiyo kadibna ay lacag ku furtaan. laakiin Eric waxa uu sheegayaa inuusan ballahayn wax ehel ah kaligiisna uu yahay. laakiin intuusan ba hadalka dhammaynin waxa uu imaanaya Ray oo soo dilay badi ciidamadii. intaa kadibna waxa uu sii raacinayaa taliyihii wuxuuna Eric ka furayaa gacmaha si ay u sii baxsadaan maadaama dunidu aysan jirin dhaqaale qof kasta oo hub haystana uu yahay kan taliyaha ah. Eric iyo Ray waxay soo raacayaan gaarigii iyaga oo soo fulay helaamiga. dhaxintii ay sii socdeen Eric waxa uu istaajinayaa gaariga si uu saaxiibkiisa Ray ugu dhayo dhaawacii. intaa kadibna waxay sii wadanayaan socodkooda. cabaar kadib waxay imaanayaan goob si ay rasaas uga sii iibsadaan iyaga oo isku diyaarinaya sidii gaariga ugu soo furan lahaayeen Henry iyo saaxiibadiisa. Eric haddana waxa uu ogaanayaa in lacagta rasaasta ay qaali tahay taa beddelkeedana uusan bixin karin lacagta balse waxa uu aad ula yaabayaa markii uu arkay Ray oo kasoo degaya gaariga gacantiisana ku bixinaya lacagta. waxyar kadib waxay sii wadanayaan safarkooda. cabaar markii ay sii socdeen Ray waxa uu Eric tusayaa halkii ay joogeen walaalkiisa Henry iyo saaxiibadiisba laakiin xilliga oo ahayd galabgaab yacni qorax dhac. Eric waxa uu sheegayaa in beri ay weerarayaan waxayna go'aansanayaan habeenkii inay seexdaan meel banaan ah. habeenkii Ray waxa uu Eric u sheegayaa inuu dili doono walaalkiisa Henry maadaama uu qiyaamay sidoo kalena uusan soo raadinin meel cidlahana uga soo tagay. balse Eric maba aha mid hadalka ku socdo kaliya waxa ka go'an sidii uu gacanta uga dhigi lahaa gaarigiisa. subaxii markii uu dilaacay aroor horeba waxay u soo kala hayaan dhinacii guriga ilaan waa rag wax ka maqane. waxay soo qaadanayaan gaarigii kadibna waxay diyaarsanayaan hubkooda. markii ay yimaadaan gudaha guriga Eric isla markiiba waxa uu salka ku hubsanayaa gaarigiisa isagoo aanan u jeedin wax kale halka Ray uu taagan banaankana uu dareemayo cabsi ah inuu wajaho kaligiis maadaama Eric uu helay wixii uu doonayay. laakiin Eric markii uu arkay Ray wejigiisa wuu soo degayaa isaga oo maanka ku hayay inuu ka caawiyay siduu mar kale ku heli lahaa gaarigiisa. intaa kadib Ray waxa uu qiimeynayaa xaaladda guriga kadibna waxa uu Eric u sheegayaa in Henry isagu uu aadayo halka labada kalena uu isaga ka difaaco. sidoo kale waxa uu sheegayaa inuusan riidin wax xabad ah. intaa kadib Eric waxa uu soo galayaa qolkii ay ku jireen labadii oo hurda wuxuu ka toosinayaa hurdada isagoo u sheegaya inaysan samayn karin wax dhaqaaq ah halka Rayna uu soo galaya qolkii uu ku jira walaalkiisa Henry. waxa uu ku qabanayaa biskoolada isagoo aad u qaylinaya. Henry markii uu ka toosay hurdada wuxuuba ku warhelayaa walaalkiisa Ray oo kor taagan mise u handadaya. dhinaca kale Eric waxa uu banaanka u soo bixinayaa labadii isagoo oo ku haya biskoolad halka Henry sidoo kalena uu Ray ku qabanayo biskoolad laakiin waxa uu rabaa kaliya sidii walaalkiisu u dejin lahaa. nasiib xumo Ray waxa uu galayaa xasuusihii wuxuuna ka qaadayaa khalkhal taasi oo sababtay inuu rido xabad balse kuma aysan dhicin Henry laakiin isaga oo ka naxay xabadda waxa uu ridayaa xabad kale taasi oo aakhirkii sababtay geerida Ray. intaa kadib Eric markii uu maqlay dhawaaqa rasaasta isaguna waxa uu dilayaa labadii kale wuxuu soo aadayaa qolkii Henry si uu soo hubsado xaaladda saaxiibkiisa Ray balse wuxuu arkayaa Ray oo ay ka baxayso nafta. Eric isla markiiba waxa uu dilayaa Henry kadibna waxa uu qolka ku dhex arkayaa oday isaga oo raba inuu
dilo waxa uu go'aansanayaa inuu iska daayo. ugu dambeynna filimku waxa uu soo dhamaanayaa Eric oo banaanka u soo bixinaya meydka saaxiibkiisa, intaa kadibna uu gudagalayo siduu ku sii wadan lahaa safarkiisa Australia. saaxiibayaal, waxaynu soo gaarnay gunaanudka mawduuceena maanta. waxaan idinka raaligelinayaa in muddo aanan channelku waxba soo dhigin, mashquul yar uu haysta awgeed. waxaan rajeynayaa in muuqaalo xiiso badan aan mar dhow idin soo fasaxo, idinkuna dulqaadkiina aad ayay ugu mahadsantihiin. waxaan idin rajeynayaa waqti wacan.